tababarahan Sheexariga wuxuu saf ka maray oo si qasab ah ula seexday gabdhaha xulqaranka Zambia. Waa ninka faraxumeeyay oo mustaqbalkoodii ku dheelay 14 gabdhood oo ciyaartooy ah. Wuxuu caadaystay inuu midba habeen jawi cudoon kula raaxaysto, isagoo ku qaraabanaya galmo ku bedelo ciyaar joogto ah. Macnaha gabadha uu shafka saaro mooyee gabar kale garoonka lu gelin mayso. Wuxuu sheegay inuusan dhammaantood baalaha ka rifin, balse uu gacmo-gacmeeyay qaarkood. Heshiis iyo hannaan farsamaysanna uu kula macaamili jiray. Tababarahan ayaa lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay xuquuqda aadanaha iyo xeerka anshaxa ciyaartooyda ee FIFA. Sheexari ma gaboobe, duqani waa shabeelnaagood aan libiqsan oo aad u jecel qalanjooyinka daada yar. Siduu u yaqaan shaxda banooniga ee tiki-takada, shukaansiga uguma fiicna, balse rikaato ayuu ku caanamaalay oo xodxodashada wuxuu ka doorbidaa inuu xoog ku muquuniyo hadba gabadhii uu gayaankiisa ka gacloodo. Wuxuuna gabdhaha xulqaranka Zambia ku handadaa gabadhii aan isu dhiibin inaysan xulkeeda u dheelayn oo faceeda ay ka hari doonto, riyadeeda banoonigana hal bacaad lagu lisay uu ka dhigi doono. Hay'adda ciyaaraha adduunka ee FIFA way ka garaabtay kiiskan, laakiin dowladda Zambia ayaa dabooshay xadgudubka lagula kacay haweenkeeda, waxayna wacd ku martay inaan la baari doonin tababarahooda oo markii ugu horeysay taariikhda xulqaranka Zambia u soo saaray koobka adduunka. fadlan like saar muuqaalkan, haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl. Ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo duruusta shareecada islaamka? haddaba ha moogaan quraan classes online oo ay diyaar ku yihiin culimo u diin adigoo gurigaaga jooga si online ku baraya quraanka axaadiista iyo luqadda carabiga. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. xulqaranka haweenka waddanka Zambia oo iminka isu diyaarinaya inay ka qayb qaataan koobka adduunka ee gabdhaha ee ka dhacaya Australia iyo New Zealand ayaa tababarahooda Brice Mowabi waxa lagu eedeeyay inuu ciyaartooyda saf ka maray oo midii uu doono u yeeran jiray si uu la seexdo. waxaana eedeynta loo gudbiyay guddiga sare ee FIFA sanadii 2022 si ay u baaraan kiiskan. ayaa waxa la sheegay inuu gabdhaha ku handado inuusan line up siin doonin ama safi doonin gabadhii aan la seexan. weliba waxa dhacday inuu kursiga kaydka dhigay dhowr gabdhood oo dalabkiisa ka dhiga adeegay. tababarayaal kale iyo saraakiil sare oo ka tirsan guddiga kubadda cagta ee Zambia ayaa iyagana lagu eedeeyay inay gabdhaha ciyaartooyda uga faa'iideystaan inay la raaxaystaan haddii ay doonayaan inay ka mid noqdaan line upka qaranka. madaxa xiriirka kubadda cagta ee waddanka Zambia Andrew Kamanga oo waraysi siiyay AB ayaa waxa uu sheegay in guddiga FIFA iyo booliiska dalka Zambia ay baareen kiiskan sanadii hore markii eedeyn loo soo jeediyay tababarahooda oo ay sheekadani hadda tahay mid laga soo gudbay. sidoo kale tuna madaxweynaha xiriirka kubadda cagta waddanka Zambia ma uusan xusin magacyada dadka la tuhunsan yahay ama kuwa la eedeynayo. cod qarsoodi ah oo laga qabtay tababare Brice Mowabi ayaa muujinaysa inuu qirtay jiritaanka fadeexadan, wuxuuna cadeeyay shukaansi iyo gacmo-gacmayn inay dhex martay gabdhaha qaarkood, balse aysan jirin wax qasab ah ama handadaada oo isagu u sameeyay. marka loo eego guddiga anshaxa ee FIFA waxay sheegeen in baaritaanadu ay ka socon waayeen dhinaca dowladda, kuwaasoo halkii ay gabdhaha xuquuqdooda u raadin lahaayeen la garab noqday gaashaanna u fidiyey tababaraha eedeysanaha ah. inkastoo xiriirka kubadda cagta dalka Zambia sanadii hore uu galay baaritaanka eedeymaha loo jeedinayo tababarahooda, weliba ay tilmaameen in si dhaba loo baari doono kiiskan, haddana wax ka soo baxay iyo cid la magacaabay midna ma jiraan. wargeyska The Guardian oo xiganaya mid ka mid ah gabdhaha ciyaartooyda taasoo codsatay in magaceeda aan la xusin, waxay wargeyska u sheegtay in xiriirka kubadda cagta dalka Zambia uusan wax culaysa iska saarin kiiskan, sababtuna waa guusha dhowaan gabdhaha xulqaranka Zambia ay soo hooyeen iyadoo uu hogaaminayo macallin Brice Mowabi. sidaas awgeedna aan lagu dhiiran karin in la sameeyo baaritaano hufan. xidigaha xulqaranka gabdhaha ee Zambia waxay u soo baxeen ciyaarihii Olombikada ee Tokyo 2021. sidoo kale tuna waxay ka qayb galayaan koobka adduunka ee gabdhaha, weliba waa kuwo ka aqoon iyo tayo badan ragga xulqaranka Zambia oo aan weligood u soo gudbin koobka adduunka. jimcihii la soo dhaafay gabdhaha xulqaranka Zambia ayaa guuldarro 3-2 kaga naxsaday gabdhaha xulqaranka Jarmalka oo iyagu horey ugu guuleystay koobkan. kabtanka iyo weeraryahanada reer Zambia ayaana qarankeeda u dhalisay 2 gool oo ku jiro goolka guusha oo ay dhalisay daqiiqadii 12aad ee waqtigii lagu daray. Barbabanda ayaa iyada laftigeeda laga reebay sanadii hore koobka Afrika ee gabdhaha kadib markii shaki la geliyay dhadignimadeeda, walow baaritaan dheer kadib la ogaaday inay gabar sax tahay loona ogolaaday inay qarankeeda ciyaaraha ku metasho. macallin Brice Mowabi ayaa mar uu waraysi siinayay wargeyska FIFA guushii ay noo soo hooyeen gabdhaha kubadda cagta qarankeenu waxa ay wax weyn ka bedeshay aragtidii laga qabay kubadda cagta, taasoo iminka gabdho badan ku riixaysa inay banooniga ciyaaraan. bishaaro u gaara qurbo joogta Soomaaliyeed.
gaar ahaan kuwa qaata cayrta aan ku fillayn ama kuwa mushaharkoodu uusan kaafin karin qoysaskooda kala jooga dalka hooyo iyo qurbaha. mudanayaal iyo marwooyin, tani waa fursad ganacsi oo ay idiin soo bandhigayso shirkadda caalamiga ee Forever Living, taasoo laga leeyahay waddanka Mareykanka. haddii aad tahay jeeb miskiin aan qurbaha haad ku hayn ama aad tahay taraagle, tani waa fursaddii aad maalqabeenka ku noqon lahayd, waxaana ka shaqaysan kartaan idinkoo jooga guryihiinna ama goobaha shaqada. kol haddaad rabto dhaqaale dheeri ah ama aad doonayso inaad noloshaada wax ka beddesho, fadlan la xiriir manager Fawziya oo ah ganacsade guulaystay, heshayna abaalmarino sarreeya muddadii ay ka mid ahayd Forever Living. kalena xiriir WhatsApp number +1 20 64 58 36 20.